runtii maanta waa maalin ay qurmayso taariikh cusub dhammaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waa maalin aan soo dhaweyneyno marka bilaabaya qodinta shiraalka dalkeena ay markii ugu horeysay. Shiraalkaas oo sida la sheegay muddo dheer dadka Soomaaliyeed ay ku haminayeen in maalin uu la soo saaro si macnaha culayska dhaqaale ee dalkeena haysta ay wax fiican uga tarto. Marka maanta waxay tahay maalin weyn dadka Soomaaliyeed, waa taariikh cusub, waa bog cusub, waa maalin aan filayno inay tahay bilowga horumar oo ku tallaabsado dalka Soomaaliya. Sida la sheegay shidaalka ku jira dhulka Soomaaliya aad ayuu u ballaaran yahay, sidoo kale waxaa ku jira gaas dabiici ah. Sida aan la soconana caalamka waxa ugu qaalisan maanta oo dhaqaalaha lafdhabar ku ah waa dhoofinta shidaalka iyo gaaska. Haddii la soo saaro waxay keeni doontaa isbeddel xooggan dalka Soomaaliya, gaar ahaan inaan helno lacag adag oo soo gasha dalkeena oo ka soo gasha iibinta shidaalkaas la iibin doono. Marka arrimahaasi waxay wax badan ka tari doonaan dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Sida la socotaan in badan dhaqaalaha wuxuu ku tiirsanaay waxyaabaha soo degsano, waxaa yaraa waxa aan dhoofsano oo aan ka helno lacagta adag. Marka taas waxaa heli doonaa wax aan dhoofino oo ay naga soo gasho lacag adag. Dib u dhis ayaa dalka ay u samayn doontaa, kaabayaasha dhaqaalaha dhismi doono, shaqooyin abuurmi doono, xiriirka iyo socodka gobollada ayaa hagaagi doono. Marka insha Allah taala horumar ballaaran ayaa ka dhalan doona sida aan rajeynayno. Soomaaliya waxay uga dhigan tahay arrintani wax aad iyo aad u sareysa. Waxaan ka mid noqon doonaa wadamada shidaalka soo saara dhoofiya, taasoo macnaheedu uu yahay in dalka uu horumar uu samayn doono, isla markaasna dadka ay heli doonaan fursad nololeed oo ka fiican kana horumada hadda jirto. dalkan uu noqon doono dal oo macnaha dhaqaale leh, haysta lacag adag, wax soo saara, wax dhoofiya, ka mid noqdo wadamada shidaalka dhoofiya ee dunida. adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya, ku hadal kaliya, ama internet iyo ku hadal wada jira. naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees.